السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا موضوعنا maanta waxaan filayaa suunka in dad badan ku jiraan dadka waxaan ku jirnaa waan duubnaa muuqaalka hadaan cilada ku iman duubitaanka muuqaalkan موضوعنا in maanta ka hadlayno waxa loo yaqaan cryptocurrencies gaar ahaan lacagtan loo yaqaan bitcoin ayaan isu guud u sharaxaynaa marka hore waxaan rabaa inaan dib baraarujiyo ay sheego in muuqaalkan iyo muuqaalo badan oo kale hadii aad daawataan inaan idin damaanad qaadaynin damaanad buuxdayna idin siinay inaad maal gashataan lacagahan loo yaqaan cryptocurrencies ama inaad fahanteen waxay ka baahan tahay inaad korsyo badan qaadataan si lacagahan u maal gashataan ama u fahantaan si buuxa u fahantaan lacagahan cryptocurrency waa lacago digital ah oo internetka gudahooda ka shaqeeya ma aha lacag ay dawladda maamusho ama shakhsi gaar ah ama group ama hay'ad gaar ah maamusho waa lacago qof kasta qaadan karo oo lahaan karo oo maal gashan karo lacag kale ka sii sameyn karo kaliya wuxuu u baahan yahay inuu cilmiga lacagahan cryptocurrency oo barto lacagahan cryptocurrency waxa ugu horeysay lacagtan loo yaqaan bitcoin oo 2009 soo baxday lacagta waxa soo diyaariyay nashqadeeda soo dejiyay qof magaciisa ku sheegay Satoshi Nakamoto wuxuu sheegay in kusoo jeedo dalka Japan laakiin wax faahfaahin oo inta dheer oo sii bixiyay ma jirto qof isqariyay ama hay'ad isqarisay ama shirkad isqarisay ma oran karnaa ilaa hadda lama yaqaano waxa ay tahay kaliya magacaas uun baa loo yaqaano Satoshi Nakamoto ama Nakamoto Satoshi waxa uu soo saaray waraaqdan oo caan ah oo 9 page ka kooban oo la yaqaano worksheet of Bitcoin waxay sharaxaysaa Bitcoin iyo sida ay ku timi iyo sida ay u bedeli karto lacagahan dawladuhu maamulaan qadiimka ah sidoo kale waxa uu ku sharaxayaa faa'iidooyinka ay leedahay lacagtan loo yaqaano Bitcoin oo 9 page ka kooban tahay qof walba Google kala soo degi kara oo wada akhri karta Satoshi Nakamoto waxa uu sheegay in lacagtani ay tahay peer to peer electronic cash system oo ah lacag aanay gacan saddexaad aanay soo dhexgali karin ama lacagto aanay gacan saddexaad mari karin shakhsi to shakhsi ay tahay labada shakhsi ee wax kala bedelanaysa ama wax kala gadanaysa kaliya ay lacagaha ay isdhex marin karaan imka waan naqaanaa lacagaha hadii laba shirkadood wax kala iibsanayaan bangi bay isu mariyaan ama dawlad bay heshiis iyo waraaq ka soo saxeexdaan marka waa la yaqaanaa gacan saddexaad ba ku jirta inta lacag ay labada shakhsi ama labada bangi ama labada company ay isdhex mariyeen halkaas ayayna dawladuhuna cashuuraha iyo controlka lacagaha ay ka fahmi karaan oo cashuuraha ka iman karaan oo sababta loo yaqaan lacagtan bitcoin-ka loo sheego inay ka soo horjeedka ay dawladaha ku tahay oo aanay dawladuhu ogaan karin qof kasta inta bitcoin uu haysto kaliya qof kasta addresskiisa iyo wallet-kiisa ay lacagtiisa ugu jirto waa maskaxdiisa uu ku haystaa ma jirto cid kasta saddexaad oo ogaan karta haddii aynu si guud u eegno hababkii hore ay qadiimkii hore lacag u soo mareen evaluation of money waxaan baariir loo yaqaan baa jiray oo lacagaha isku kala bedelan jiray la kala bedelan jiray alaabaha baan sheegayaa lacagaha ma jirin bariga qof kasta alaabtu u baahan yahay ayuu qaadi jiray suuq geyn jiray alaab kale oo suuqa taala oo u baahan yahay ayuu soo bedelan jiray inagu baan nahay intaasoo qarni bay soo taxnayn marka dadka qadiimka ah ee hore isticmaali jiray habka labaad ee la isticmaali jiray waxa loo yaqaan gold weeyaan waa dahabkii waa sababta markii la ogaaday dahabku in loo yaqaan waxa loo yaqaan scarcity wax xadidan oo yar oo dirqi lagu heli karay yahay markii la ogaaday ayuu qiimo yeeshay markii la ogaaday inaan dhagax kasta oo wadaad ka heshay inaan dahab aan noqon karin markaas ayuu qiimo gaar ah yeeshay qiimo gaar ah baa lagu xadiday alaabada la rabo in lagu kala bedesho marka dahab baa lagu gadan jiray sidoo kale waxa loo yaqaan metal coins waa coinskii biraha ka sameysnaa ama shilinka wadamo badan baa laga isticmaalaa iminka birta ka sameysnaa marka kaasna waxay ka mid tahay evaluation of money ay ka mid ahay taafaraad waxa weeye paper money weeyaan lacagahan waraaqaha ay midna naqaano sidoo kale waxa jira wax loo yaqaan plastic cards sida kaarkan Visa card iyo Mastercard ee bangiyadu bixiyaan ee lacagaha lagu shubto sidoo kale waxa loo yaqaan waxa jira lacag loo yaqaan electronic money oo lacagaha saadka iyo dahabka sahalka EVs bas waxa soo dhan oo lacagahan loo yaqaan electronic money laakiin lacag maaha waxay huwan tahay lacagihii hore paper money magaceedu bay huwan tahay dawlad kasta electronic money-geeda iyada oo la baxda lacagteedii oo electronic noqotay weeyaan sida shilinka ama dollarka marka lacagaha electronic money-ga ee digital-ka ah nambarada la isku dirayo calaamadda ay wataan ama waa dollar ama waa lacag kale
sida lacagayna shilinka ama dollar ayaa la soo kala diri karaa hababkan loo yaqaano SAD ama EFT plus waxaasoo dhan waxaa ka duwan lacagahan loo yaqaano cryptocurrency oo iyagu ah lacag gaarkeeda u taagan lacagahana waxaa hogaaminaysa lacagta loo yaqaano bitcoin sidoo kale waxaa jira lacago badan oo kale ethereum baa kamid ah litecoin baa kamid ah kumanaan kun oo coins kala ah baa kamid ah oo dhammaantood laakiin aan u shaqaynin inay lacag ay yihiin mashruucyo la socdaan sida mashruuca loo yaqaano metaverse oo kale coinska dhammaan metaverse ku tacalluqa qiimahooda aad buu korumaray sanadkii u dambeeyay sidoo kale waxaa jira hadaynu halka yar laabano lacagahan cryptocurrency iyo wixii loo yaqaanay fiat money waxa weeye waa lacagaha aynu naqaano kuwa waraqaha ama kuwii biraha ahaa ee hore qadiimka ahaa waxay ku kala duwan yihiin kuwan fiat money waa lacaga physical ah oo dee la taaban karo oo gacanta lagu qaadan karo sidii gacanta tii waraaqda ahayd ama coinskii metaliska biraha ahaa laakiin lacagtan cryptocurrency waxay kaga duwan tahay iyadoo waa digital waa lacag internetka gudihiisa ku samaysan sidoo kale computers baa maamula lacagaha cryptocurrency-ga sidoo kale waa decentralized oo ma jirto cid khaas u leh ama dowlad ama hay-ad ama qof shakhsi ah oo gaar oo maamula oo hadhow marka aad lacagtii dirsanaysid kaasi xisaabinaya ama historygii iyo transactionkaagii haya ma jirto laakiin lacagahan fiat money-ga dowladaha maamula sidoo kale waa centralized bangiyada dhexe ee dowladaha ayaa maamulkeeda leh sidoo kale waxa ku kala shaqeeya low iyo banks sharciyo iyo bangiyo ayaa kala haga lacagahan cryptocurrency-ga waxaa go'aamiya waa supply iyo demand-ka waa dalbashada inta maalinta la iibsado haddii lacagta aad loo iibsado sare bay u kacaysaa haddii aad la isaga iibiyana hoos bay u dhacaysaa mawduucada soo dhaweeyo sidoo kale lacagahan loo yaqaano fiat iyagu suuqa maamula oo bangiga dhexe dowladda maamula isagaa sare u qaadi kara isagana hoos u dhigi kara sidoo kale inflation baa ku dhici kara sicir barar waxaana dejin kara oo awoodeeda leh dowladda ama hay-adda ama bangiga maamula sidoo kale tanina waa la mid sheedkan haddii aynu dib ugu noqono meelaha lagala socdo lacagahan loo yaqaano cryptocurrency dhowr website baa jira imika website-kan loo yaqaano coin market cap ama market cap-ka wuxuu soo dhigayaa dhammaan coinska ayuu ku sharaxayaa markasta waxa ugu horeysa bitcoin waa lacagtii ugu horeysa waa lacagta ugu qaalisan lacagta kusoo xigtaa waa ethereum ilaa top 10ka ilaa 100 topka baa la isticmaalaa ama la iibsadaa ama la isku halayn karaa lacagtan bitcoin-ka haddii aynu eegno maanta waxay maraysaa 44,000 bay maraysaa hal bitcoin one bitcoin dadka iminka ganacsatada waaweyn ayaa ku tartama oo iibsada marka qof kastiba wuxuu ka taajirsan yahay qofka inta bitcoin uu haysto sidoo kale mustaqbalka waxaa la filayaa in dowladuhu ay ku bedeshaan halka ay dahabka iminka ay ku bedeshaan inay lacagta bitcoin ku bedeshaan dowlad kastaba inta bitcoin ay haysato ay dowladda kale ka qaniisan tahay oo waxaa ay iska shabahaan lacagtan bitcoin-ka iyo dahabku meelo badan bay iska shabahaan waxyaaba loo yaqaan scarcity weeyaan waa waxyaaba numberkooda xadidan yahay bitcoin cid kastaba ma samayn karto sidoo kale bitcoin-ka caalamka yaalla oo 120 milyan iminka waxaa circulating system ayuu ku sheegayaa intaa iminka suuqa ku jirta ee la isticmaalo oo 9% kala ku furto 9% weeye 10% baa arsan 10% kaana wax mining la yiraahdo baa lagu sameeyaa oo la qodaa sidoo kale lacagtan bitcoin-ka loo yaqaano market cap-keedu ama suuqeedu guud ahaan totalka lacagta uu ku fadhiyo waxa weeye 840 bilyan weeye not millions waa billions weeyaan market cap-ka goldku isagu waa 9 trilyan marka in badan ka sareeya 1 trilyan haddii tan gaarto 8 trilyan oo kale ayuu ka sareeyaa laakiin gaari kartaa waa mustaqbalka waxaa loo yaqaano gold ayay noqon kartaa bitcoin-ku waana sababta imika dowladaha iyo ganacsatada waaweyn ugu tartamaan ay u kala iibsadaan 2013 ama 17 lacagahani waxay ahayd lacagtan waxay ahayd 3,000 meelahaas gaartay imika waa adigan arka inay 44 gaartay sanadkii hore dhamaadkiisii waxay gaadhay 60,000 meelahaas gaadhay imika hoos soo dhacday sidoo kale lacagtan kale ee ku xigtay ethereum baa loo yaqaanaa waa 3,000 bayada imika qiimaheedu yahay one ethereum imika 3,000 baa laga siinayaa waxaana waa market cap-keedii qiimaha guud ay ku fadhidaa waxa weeye 370 bilyan bay ku fadhidaa
sidoo kale circulating keedu waxa weeye 19 milyan oo Ethereum bay markaa suuqa ku jira caalamka. tan kale ku xigta USDT baa la yiraahdaa waa Tether iyadoo isma bedesho. BNB baa ku xiga, USD coin baa ku xiga, XRP baa ku xiga, Cardano baa ku xigta, Solana baa ku xigta, Terra, Dogecoin, Polkadot way badan yihiin. Shiba Inugan aad baa loo iibsanayay maalmihii u dambeeyay. Coinska imika coinska wada qaali marka coinska cusub ee soo baxa qofku markuu cilmiga leeyahay uu maal gashadaa inta uu listiga ku jiraan suuqa soo gelin ayuu ka iibsadaa ilaa kumanaan xabo. marka uu suuqa soo galay mashruucaasi si fiican u kala kacay lacagteena qiimihi yara ku iibsado aad u kaco ayuu qofkaasi dib isaga iibiyaa dadna saas ku faa'iida. website kan kale waxa loo yaqaanaa CoinGecko baa loo yaqaanaa, isna waa laga socdaa. Bitcoin oo kala maanta isagu intaas uu website ka kala sheegayo uu sheegay 24 saacadood u dambeeyay kacbi ku socotay. waxa waa graafkeedii saru kacbi ku socday imika waa ka maanta wuxuu ka soo bilaabmay 24 saacadood ka hor 24 February ayuu sheegayaa 42,000 buu ahaa. 24 saacadood waxa kordhay 2,000 baa kordhay. dhammaan waxaan oo dhan waa faahfaahinta ku saabsan market cap-keedu waa kan. marka Bitcoin dhammaan dhaqdhaqaaqeedu dhinaca ka socon kartaa. isbedelkii ugu dambeeyay ku dhacay Bitcoin 5% ayay sare u kacday. halkan baynu ka arki karnaa 5.6.06 ayay sare u kacday. 100% sare u kacday ka 8 ma gaaraysaa. marka waa saruba u socotaa ilaa iyo hadda. ma iibsan karno inagu hal Bitcoin iyo 2 Bitcoin midna ma iibsan karno, laakiin coinska kale ee kumanaanka kor u dhaafay ee whitelistiga ku jira ama qiimahooda aad ka u jaban yahay. imika Cardano oo kale waa 1.09 waa $1 iyo intaas. haddaad iibsatid oo aad cilmigeed garanayso aad ogtahay lacagta inay sare u kacayso, hal Cardano laga yaabo inuu $10 gaaro. markasta marka lacagtaadii aad ku maal gashatay ama $100 ama $1,000 aad ku maal gashatay ayaa lagu gurfanayaa 10. marka haddii $10 tani ku gaadho ama $10 ku gaadho waa 10x baad haysataa. haddii 100 gaadhana ka sii daran 100x baad haysataa. Solana oo kale beri dhaweyd waxay ahayd $1 wax ka yar bay ahayd. imika waa $100 iyo dheeraad. dadkii maal gashaday imika way ka hayaan loo reeri 100% ayay ka haystaan faa'iido ah. sidoo kale lacagtan Bitcoin waxaa la sameeyaa wax loo yaqaano mining oo dahabka meelaha iska shabahan bay ka mid tahay. 20 milyan ayaa dunida ku jiray. marka imika 90% waa la soo saaray, waa la isticmaalaa, dad baa leh. laakiin 10% cidna ma laha. waa xisaabaadkaas kombiyuutaradaas xalinaya kadibna iyaga soo saaraya Bitcoin-ka. kombiyuutaradan berigi hore guryaha soo dhigan jiray halkan kombiyuutar oo kale kadibna koronto aad u badan ayuu ka qaadanaya. imika waxa soo baxay shirkado waaweyn oo waxaan ka shaqeysta oo loo yaqaan farms oo kartaan imika oo kale iyaga koronto aad u xad badan ku bixiya oo soo saara Bitcoins cusub. kombiyuutaradaas waxay xalinayaan algorithm iyo xisaabaad aad u kakan oo aad u adag bay xalinayaan. marka ay xaliyaan ayay reward helayaan ama ay helayaan hal Bitcoin ama wax ka yar. lacagtiisu aad u badan tahay. qiimaha laga siinayo iyo qiimaha dhowtaba ku baxaya qarashkiisa waxaan loo yaqaano korontada aad bay qaali u tahay. ka waa qalabada aan sheegayo ee soo saara Bitcoin-ka waa shirkadahan kombiyuutarada waaweyn ee xisaabaadka aadka u kakan xalinaya kadibna helaya hadhowtole waxay helayaan Bitcoin bay helayaan. waxaa jira dawladaha ugu soo saarka badan Bitcoin ama Bitcoin-ka ugu badan caalamka soo geliyay waa China ka mid ah. sababtoo korontadeeda ayaa aad u jaban oo waxay ka sameeyaan qoraxda iyo ayay ka dhaliyaan. marka korontada waddan kasta ay aad u jaban tahay Bitcoin-ka soo saarayaan iyo xaddiga korontada kombiyuutarada ay cunayaan aad u badanaysaa. kadibna Bitcoin-ka ay soo saarayaan waa badnaanaysaa. Bitcoin meelaha lagu kaydsado waxaa ka mid ah wallets baa ka mid ah. walletsyada qaar soft iyo qaar hard way jiraan.
meelaha walletiyada laga furto Binance baa kamid ah, waxa kamid ah Trust Wallet baa kamid ah, Coinbase baa kamid ah. halkan iminka aynu ku jirnaa waxa weeye Binance account baad ka furanaysaa, kadibna Bitcoin-ka aad u baahan tahay ID-gaaga iyo waxaad gashanaysaa ama passport ama ID haddii aad leedahay, sidoo kale address-kaaga wax kastoo aad bixinaysaa. marka la verify lagu siiyo account-kaaga ku verify ku noqdo ayaa waxaad samayn kartaa wixii Bitcoin aad haysatid ama aad iibsanaysaa oo account-kaaga aad ku xidhanaysaa Bitcoin aad iibsanaysaa saad ku maal gashanaysaa. sidoo kale waxaa jira dad ku trade gareeya oo suuqyada caalamka kaga trade gareeya, dadna waxaa jira dad iska iibsado iska haysto oo lacagtan sare ugu kacday. dadkii 2017 iibsaday $3,000 hal Bitcoin ku iibsaday, maanta waxay haystaan 44,000 bay halkii Bitcoin ku haystaan. marka hadduu 10 Bitcoin iibsaday maanta qofkaasi millionaire ayuu u dhow yahay. dadna waa sidaas oo iska haystaan, dadna waxay sameeyaan way ku trade gareeyaan. inka dhammaan way ka highlight gareeyay faahfaahinta account-kayga ku saabsan. halkan ku saaraya inta Ethereum inta Bitcoin aad haysatid oo dollar loo bedelay, fiat iyo spot halkan ku saaraya. sidoo kale coins-ka kale cusub ay tahay inay iibsatay kula talinaya meelaha ku soo dhigaya. sidoo kale waxaa jira walletyo hard ah oo aad gacantaada ku qaadan kartid oo aad Bitcoin ku shuban kartid, hadhowna ATM-yada Bitcoin aad lacagtaada kala bixi kartid. waa kuwa sawirkan ka muuqda dhammaan walletyada aad gacanta ku qaadan kartid oo aan cid kaa jabsanaysa aan jirin. Bitcoin-kaaga kugu jira, kadibna hadhow tolo haddii aad damacdid inaad kala baxdid ama aad ka sarifatid waxaad tegaysaa meelaha lagu sarifo. Ledger iminka shirkadaas ayaa kamid ah shirkadaha soo saara walletyadan. haddii magaalada laga helo ATM Bitcoin soo saaraya ayaad kala bixi kartaa. haddii aan magaalada aan laga helin ama waddanka aad joogtay aan laga helin waxaad samayn kartaa soft wallet ayaad furan kartaa, dhammaan shirkadahaas ka furan kartaa. Binance baa ugu badan Soomaalidu inkay ka furataa. kadibna waxaad baranaysaa sida la isaga diiwaan geliyo, waa iska diiwaan gelinaysaa. haddaad passport haysatidna ama ID kale ayuunbaad iska diiwaan gelin kartaa. aqoonsigaaga markaad haysid ayuunbaad account ku yeelan kartaa. sidoo kale waxaa jira website-kan kale cusub ee loo yaqaano CoinDesk. isagana waxaa lagala socdaa dhaqdhaqaaqyada maalintaa kusoo biiray suuqan cryptocurrency. akhbaartaa lagala socdaa. maanta waa adigan arkayn halkan shaashadiisa koowaad waxa uu soo dhigeen Bitcoin iyo Ethereum iyo XRP iyo Solana. 3-4 ayaa maanta topka ah oo ugu qiimo badan coins-ka cryptocurrency-ga. Bitcoin 44 buu ku sheegayaa, Ethereum wuxuu ku sheegayaa 3,100 iyo dheeraad. tanna waa la mid. marka waxaa lagala socdaa akhbaaraadka ku saabsan cryptocurrency inay sare u kacayso inay hoos u kacayso, saadaalaha ay sameynayaan bangiyadu, sidoo kale dowladaha aqbala maalin kasta cryptocurrency-da in wax lagu kala iibsan karo. akhbaar kastoo aad ugu baahan tahay ayaad ka heli kartaa. sidoo kale suuqyada ugu cusub ayay ka mid tahay suuqyadan cryptocurrency. suuqyadii kale ka horreeyay stockska iyo exchange-ka currencies-ka iyo waxaas oo dhan ka horreeyeen, laakiin suuqan waa suuq cusub. dhammaantiin intiinan ku jirta Zoom-ka intiinuba waa jirteen markii cryptocurrency ay soo biiraysay 2009. qof aan jirin oo inkaan halkay naga dhageysanaya ma jiro. laakiin stockska oo 90-meeyadii retailska loo furay iyo exchanges-ka iyo waxaas oo dhan ka horreeyeen.